الحمد لله والثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم walaalahayga qiimaha badan aad baan idin wada salaamayaa meel kastood joogtaan. waxaan galabta rabaa inaan idinla wadaago kelmad kooban aynu kaga hadlayno cibaado laga yaabo in badanoo dadka ka mid ihi inay ka dhacsan yihiin ama ay ka diimoon yihiin. cibaado laga yaabo dadka qaarkood inaanay cibaado ahaan u samayn, walowba ay dhici karto inay caado iyo dhaqan ahaan u sameeyaan, laakiin cibaado ilaahay loogu dhowaanayo ajar badanna lagu helayo haddii niyaddu ay wanaagsanaato qofkuna uu ilaahay dartii u sameeyo. cibaadadaas aynu ka hadlayno galabta waxa weeye cibaadada la yidhaahdo jabri alkhawaatir, qalbi kabid. jabru alkhawaatir macnaheedu wuxuu noqonayaa af soomaali ahaan qalbi kabid, qalbiga qofka oo la dhayo, la kabo, dareenka qofka oo la dhowro oo la ilaaliyo. haddii niyad jab iyo qalbi jab iyo dhaawac soo gaarona qofka qalbigiisa la kabo oo dareenkiisa kor loo soo qaado. waa cibaado runtii aada u qiimo badan. waxa aynu ka garanaynaa cibaadadaas qiimaha ay leedahay in allah jala jalaaluhu ambiyadiisa marka ay niyad jab ku yimaado ama niyad jab ku yimaado inuu dareenkooda dhisayay. nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ayaa walaalihiis waxa ay ku rideen god. wuxuu galay mowqif xarija, marxalad adag, xaalad quusa. markaasaa niyadda rabbi u dhisayaayo wuxuu leeyahay latunabbi'annahum biamrihim haada wahum laa yashcuruun. markii ay godka ku rideen ayaa rabbi wuxuu u waxyooday oo qalbigiisa ku soo tuuray latunabbi'annahum biamrihim haada wahum laa yashcuruun. yuusufow, arrintan waad uga sheekayn doontaan iyagoon ogeyn, iyagoon ku baraarugsanayn oon garanayn, iyagoo odhanaya innaka la anta yuusuf, ma yuusuf baa tahay baad uga sheekayn doontaa, anta yuusuf ayaad uga sheekayn doontaa. waxaa markaa dareenkiisa lagu ridayaa godkan waa ka bixi doontaa. latunabbi'annahum biamrihim haada wahum laa yashcuruun macno weyn bay xambaarsan tahay oo niyad dhis ah oo qalbi kabid ah. waxay xambaarsan tahay yuusuf godkan ku raagi maysid, ku jiri maysid, waa ka baxaysaa, ifkaad u baxaysaa, waa sii noolaanaysaa, nolol fiican baa kaaga dambaysa, walaalahaana waa la kulmi doontaa, arrinta ay sameeyeenna waad uga sheekayn doontaa. niyaddaa loo dhisayay. marka uu qofku xaalad adag ku jiro niyaddaa loo dhisaa. nebi maxamed sallallahu alay wasallam ayaa daa'if lagu soo dhibay, la dhagxiyey, culays badan kala kulmay qoomkiisii. markaasaa si niyadda loogu dhiso rixlat al-israa waalmicraaj loo qaaday oo dareenkiisa lasoo kiciyey, niyadda loo dhisay. nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa waxyigii ka go'ay. markaasaa mushrikii carab ku qayliyeen oy dhaheen rabbi baa u caroodayoo waxyigii baa laga jaray. markaasaa suurat duxaa waxaa lagu leeyahay maa waddacaka rabbuka wamaa qalaa wala alaakhiratu khayrun laka min aluulaa wala sawfa yuctiika rabbuka fatardaa. jabri khaatirihii bay ahayd oo niyaddaa nebiga loo dhisaayey sala allahu calayh wasalam. marka dareenka qofka oo lasoo kiciyo marka uu niyad jab ku yimaado oo niyaddiisa la dhiso waa cibaado aada u qiimo badan. alimaam sufyaan athawri waxa uu yidhi ma aan arkin cibaado uu qofku ilaahay ugu dhowaado, maa ra'aytu cibaadatan yataqarabu biha alcabdu ilaa rabbihi mithla jabri khaatiri akhiihi lmuslim. ma aan arkin cibaado uu qofku rabbi ugu dhowaado oo la mid ah qofka qalbigiisa, qofka muslimka ah qalbigiisa oo la kabo. soomaalidu waxay tidhaahdaa qandho timi qofna kaama qaadee maxaad qabtaa qalbigay u roon tahay, oo macnaheedu yahay macnaha qandho ama culays kugu yimi waa qadar rabbi, qof kaa qaadi karaa ma jiro, ilaahunbaa kaa qaadi kara. laakiin ka warhaynta iyo warsee lagu hayaa iyo maxaad dareemaysaa iyo waraysigaas ruuxaddiisa wuxuu yahay niyad dhis. qandho timi qofna kaama qaadee maxaad qabtaa qalbigay u roon tahay. arrintaa runtii in badanoo dadka ka mid ihi way dhayalsadaan. in qofka sidaas loo garab istaago oo la garab joogsado ilaahay baa loogu dhowaan karaa. cibaado wanaagsan oo rabbi kaa ajar siiyo bayna noqon kartaa. waxaa arrintaa inoo iftiiminaya nebi maxamed sala allahu alay wasalam oo xadiid saxiixa wuxuu ku leeyahay axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas. dadka waxaa ugu
ilaahay agtiisa loogu jacayl badan yahay kooda ugu waxtarka badan oo sida dadku ay dadka wax u taraan oo ay garabkooda u istaagaan oo ay u caawiyaan oo ay ugu dhag raariciyaan ayaa rabbina jalla jalaaluhu u jeclaanaya. waa marka ay dadkaasi si wanaagsan oo niyad sami ah oo ilaahay u dhowaansho ah oo taqarrub ila allaahi ah oo ay ajar ku raadinayaan, marka ay dadka u caawiyaan ilaahayna wuu ku jeclaanayaa shaqada ay samaynayaan. markaasaa intaa kagama hadhin nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi wa axabbu alacmaali ila allahi caza wajalla suruurun tudkhiluhu calaa muslim. shaqo uu qofka muslimka ahi qabto waxa ilaahay loogu jacayl badan yahay shaqada ah suruurun tudkhiluhu calaa muslim, farxad aad gelisay qalbiga qofka muslimka ah. qof muslima qalbigiisa oo aad farxad gelisay waa shaqo ilaahay agtiisa aad loogu jecel yahay. shaqadaas ilaahay agtiisa lagu jecel yahay ee aad qofka qalbigiisa macnaha farxadda ku gelinaysid waa cibaado. eeg hadda, qof baad ka farxisay, qalbigiisaad farxad gelisay, murugo haysatay baad ka qaaday, qalbigiisii baa kabtay, jabrul khaatir baa u samaysay. qofkaas aad arrintaa u samaynaysid caadooyay kaa noqon iyo dhaqan, ilaahay baad ugu dhowaan kartaa, janno iyo ajar baana ku raadsan kartaa. suruurun tudkhiluhu calaa muslim. axabbu alacmaali ila allah, acmaasha ilaahay yani dartiis loo sameeyo ee rabbi agtiisa loogu jacayl badan yahay waxaa ka mid ah suruurun tudkhiluhu calaa muslim, qofka muslimka ah ood qalbigiisa farxad gelisid. nebigu wuu sii waday sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi aw takshifu canhu kurba, murugo haysatay baad ka qaaday, welwel iyo murugo haysatay ayaad qofkii ka qaadayoo culayskii iyo meeshii uu ka sheeganayay baad ka kaafisay. aw taqdii canhu daynan, murugooyinkay ka mid tahaye aw taqdii canhu daynan, dayn baa ka gudday, dayn buu la ildarnaa, la daalaadhacayay, culays dayneed baa haystay. oo bini aadamku sidiisaba waxa weeye dad badanoo iyagoo jecel inay dayntii iska gudaan laakiin duruuftu aanay u saamaxayn baa jirta. marka waxaa ku soo gelayaa ay xadidan yihiin oo laga yaabo waxaa ku soo gelaya iyo expenseska iyo kharajaadka kaa baxaya inay kala badan yihiin, oo kharajka lagaa rabo bil kasta inaad bixisaa uu ka badan yahay inta ku soo gelaysa. waxay noqonaysaa inaadan gudi karin culaysyadii kaleeto iyo deymihii ku saarnaa. qofka noocaas oo kale ah marka oo daynta la ildaran oo culayskaasi uu haysto, ciddii ka fayda oo ka gudda ilaahay bay ajar agtiisa kaga helaysaa. cibaado fiican oo cibaadooyinkaa ilaahay agtiisa loogu jacayl badan yahay ka mida bayna gudanaysaa. aw tatrudu canhu juucan, ama gaajaad ka caylinaysaa. qof gaajaysnaabaad gaajadii ka bi'isay, cuntaad siisay, waad quudisay. ilaahay agtiisa cibaado la jecel yahay baad samaynaysaa, camal rabbi agtiisa laga jecel yahay baad samaynaysaa. waxaasoo dhan waa cibaadooyin laga yaabo dadka qaarkood inay caado ka noqoto. kan daynta inaad qaraabonimo iyo ehelnimo iyo uga bixiso oo aysan ilaahay ugu dhowaanshihiisa kaa noqon baa dhici karta. saaxiibtinimaad uga bixinaysaa, midka baahan baad waxaad u siinaysaa waxa weeye wuu ku xigaa ama arrimo kaleeto. arrimahaas aynu sida caadiga ah caado ahaan u samayno waa la cibaadayn karaayo cibaado aad ilaahay ugu dhowaato bay noqonaysaa. niyadaana xukuntaho waxaa la rabaa inuu qofku ilaahay dartii ula jeedo, ilaahay ugu dhowaanayo, niyad sami iyo niyad wanaagna uu samaynayo. walaa an amshiya buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam xadiidka isagoo sii wada, walaa an amshiya maca akhin lii fii xaajatin, inaan u raaco walaal muslimahoon leeyahay, walaal muslima inaan u raaco dan uu leeyahay inaan u raaco ayaa axabbu ilaya, waxaa layga kalgacayl badan yahay min an actakifa fi hada almasjidi shahran, ay yacni almasjid annabawi fi lmadiina. masaajidkaygan, masjidka nebiga ah sala allah alay salam, inaan bil ictikaafsanaado waxa aan ka jeclahay buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam, inaan qof walaala dan uu leeyahay inta u raaco la soo qumiyo oo la soo fuliyo. waa arrinaynu maalin kasta samayno. kanaad qaadaysaa, mid kanaad halkaa geynaysaa, mid baad magaalo kale geynaysaa, mid baad soo dhoweynaysaa, mid baad eliboor geynaysaa, mid baad ka soo celinaysaa. caadi baa u samaysaayoo caaday kaa noqotay. taasuunbaa ilaahay dartii ula niyoonaysaa, ajar iyo xasanaad ku raadinaysaa, cibaaday kuu noqonaysaa, wax ilaahay kugu jeclaaday noqonaysaa.
ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة meel baad uga soo turjumtay warqadaad u soo samaysay waxbaad qof baad caawisay inaan qof dantiis u soo qumiyo buu yidhi nebigu sal ly slam oo aan arrintiisa inta u raaco waqti geliyo hawshiisa la soo dhammeeyo ayaa waxa aan ka jeclahay inaan ictikaafsanaado. ictikaafku waa cibaadadaas salaada iyo qur'aan akhriska iyo ducada iyo khayr oo dhan wadata oo qofku masjidka ku haraayo oo maanta dhan masjidka uu ku cibaadaysanayo. waa cibaado fiican. cidda ictikaafaysaa waa nebi maxamed sal alla alay slam oo khayru khalqillaahiya. goobta uu ku cibaadaysanayo ku ictikaafayaana waa masjidkii nebiga oo halka salaadood ku tukataa ay ka qiimo badan tahay 1000 salaadood ood masaajidda kaleeto ku tukatid ee aan ahayn masjid alxaraamka xaram almaki oo isaga macnaha 100,000 oo salaadood ay u dhiganto salaada aad ku tukataa marka masaajidada kale loo fiiriyo, ama 100 salaadood oo masaajidka nebiga sal alla ly slam aad ku tukatay. almasjid annabawi masaajidka nebiga sal alla alay wasalam oo halka salaadood ku tukataa ay u dhiganto 1000 salaadood oo bil kaamila uu nebigu sal alla alay slam fadhiyo oo ictikaafsan yahay oo uu salaad iyo qur'aan akhris iyo khayr oo dhan ku jiro ayuu wuxuu leeyahay waxa taa iga wanaagsan oo aan ka jeclaan lahaa qof dan leh oy dantiisii ku adkaatay oon aniguna u furdaamin karo oon u fududayn karo inaan inta u raaco usoo fududeeyo. ka waran marka qofka dadku ay danaha ugu imanayaan, xafiis baad joogtaa, ummad baad u adeegaysaa, meeshii goobtaadii shaqada laguugu imanayaa. dadka danta leh haddaad caawiso ood ilaahay dartii u caawisona ilaahay raalli buu kaa noqonayaa, cibaadaad samaynaysaa, wax lagugu jeclaado oo dadkuna ay kugu jeclaadaan ilaahayna uu kugu jeclaadaad samaynaysaa. haddaad dhibto ood kadeedid oo dadkii danahoodii aad ku xakaarisona dembi baad shaqaysanaysaa, ummaddaad kala dhimanaysaan, ilaahay agtiisana waad ka eedoobaysaayo dee waxba kuma yaalin. waxaa la rabaa marka shaqadaa caadiga ahayd qabanaysid, haddii aad qof caawinaysid iyo haddii qofku soo mutahoo meeshii aad joogtay uu kuugu yimaadoba inaad ilaahay ugu dhowaatid oo dadka farxad qalbigooda in la geliyaa waa cibaadee aad dadka quluubtooda iyo dareenkooda sidaad farxad u gelin lahayd ka shaqaysid. waxa uu nebigu yidhi sal alla ly slam isagoo xadiidka sii wada waman kafa ghadabahu satara allahu cawratah. qofka caradiisa qariya ee caradiisa qabta ee xakameeya ilaahay ceebtiisu asturaa. marka aad caradaada qariso ilaahay ceebtaadu asturaya oo laba sibaba ceebtaada loo asturayaayo. waa mara ilaahay ceebtaadu asturayaayo dee ceeb adduuniya mid aakhiraba rabbi baa kuu asturaya. waa mar labaade haddii caradaada inta ay caradu kaa xoog badato qof kaa xoog weynaad isku taagtid oo uu kugu istaago oo macnaha uu baktigaaga ka tallaabsado dee nin ceebtiisii la waray baa tahay oo waad ceebooday, maradaa kaa dhacdo. marka mar kastaba waxaa la rabaa inaadan guuxaaga ka dheerayn oo caradaada aad xakamaysid oo ilaahay agtiisana taasaa ku fiican, bini aadanka dhexdiisana taasaad ku karaamaysan tahay. xitaa haddii aad awoodi karto inaad caradaada fuliso oo cidda aad u caraysan tahay aad ka aargudan karto ama aad ka xoog badan tahay, isla iyadana nebigu kama aamusin sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi waman kadama gaydahu walow shaaa an yamdiyahu amdaah. qofka caradiisa qariya isagoo karaya inuu caradaa fuliyaho uu ka aarguto ciddii markaas uu u carooday mala allahu qalbahu rajaa'an yowma alqiyaama. ilaahay qalbigiisa ayuu rajo ka buuxiyaa. waxaa loo baahan yahay marka walaalayaal qofka bini aadanka ah waxa uu ilaahay ugu dhowaanayo ee ilaahay agtiisa loogu kalgacayl badan yahay waxaa ka mid ah bini aadanka oo aad dareenkooda ilaaliso, qalbigooda farxad geliso, afkaaga iyo addankaagoo laga nabad galo, adiga oo noqda qof naxariisa oo hadalkiisu naxariis yahay oo ficilkiisu naxariis yahay oo isagoo dhan ummadda dareen wanaagsan oo burqanaya dhexdooda ku ah. inaad sidaa noqotid baa lagama maarmaana oy dadku kugu soo hirtaan oo wanaag laguugu soo hirto oo aad noqotid qof ummadda khayr u ah. anfacuhum linnaas tii nebigu sheegay sala alla alay salam axabu nnaasi ila allah anfacuhum linnaas inaad noqotidoo ood qof dadkaa wax taraya ee kelmaddiisu ay wax tarayso ee ficilkiisu wax tarayo ee meel kastuu joogo ummadda u nool inaad noqotid baa la rabaa. cibaadadaasaa waxaa la yidhaahdaa marka cibaadat jabri alkhawaatir, dareenka oo aad ilaaliso
qofka ood qalbigiisa kabtid kii murugaysnaa ood murugadiisii farxad waxaynu ku bilownay hadalkeenna nabiyullaahi yuusuf oo god ku jirahoo xaaladdu ay ku adag tahay baa ifafaalo fiican loo ifinayay oo lalahaa halkanaad ka bixi doontaa walaalahaana waad uga warrami doontaa oo ana yuusuf wa haadaa akhii baad odhan doontaa waa uga sheekayn doontaa ficilka ay sameeyeen idan marka aad tusaale ahaan qof buka booqato ha odhan xanuunkan aad hadda u jiiftid hebel oo aan garanayaa u dhintay adiguna ka soo toosi maysid weeye macnaheedu ha niyad jebin ee waxaad tidhaahdaa waad soo kici doontaa mar dhow farxad iyo nayaayiro iyo caafimaad baa wejigaaga ka muuqda niyadda u dhis waxaa la rabaa afkaaga inuu noqdo mid wax kaba ee aan wax dumin addinkaagu mid wax kaba uu noqdo aan wax dumin ilaahay cibaadadaas kuwo nooleeya oo ku dhaqma oo janno ku raadsada hayna ka dhigo intaasaynu ku soo afmeeraynaa kelmaddeenna jazaakum allah khayr wabaarak allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu